بسم الله الرحمن الرحيم. مدنة إسماعيل عمر جله مدحوينها جمهورية جيبوتي يوم مدحوينها حزب RPP مروة خضرة محمود حيد مروة كوبات مدنة رئيس الوزراء مدنة أفيين كدولة أفيين كبرلمانك لما كقبلياش أصحابها حزبك دبدها كوذا يمد مرتدى شرفت له مرويين يوم مدن يال وحمان شرف وين نوعه أنا جو هذا ليا مجا عمد الصومالية إثيوبيا يودعان الصومالية وحند الله ناي همبليو أفرتنجورة ده حزبك RPP يجوش جيبوتي يوجيس كأفريقيا وكهوي أنا كدان دعان كسرنا وحينوت هاي قول وين شرفنا وينوت هاي waxaanu wadaagna wax badan oo dana aan wax badan aan ka wada qabsano loo baahan yahay marka waxaan leenahay xisbigan afartan gooradiisa asxaabaha Afrika ama adduunka marka la eego run ahaantii ahaan waa xisbi in badan soo jiray taasi waxay muujinaysaa xisbigu waa xisbigii dalka soo daadihinayay soo hogaaminayay deganaanshaha dalka midnimada dalka Djibouti midnimada shacabka Djibouti iyo horumarinta hadda la gaaray iyo qaybta Djibouti ee ku leedahay geeska Afrika adduunka iyo caalamkaba waxa gaarsiiyay waa xisbigan weeye xisbi taariikh ku leh weeye geeska Afrika iyo ummadaha oo dhan RPP iyo hogaaminta aragtida dheer ee madaxweyne Ismaaciil Cumar Geelle guulo badan buu soo hayay run ahaantii waxa la taaban karaa midnimada dalka jamhuuriyadda Djibouti iyo midnimada shacabka hogaaminta madaxweynaha iyo hogaaminta xisbigan baa guushis kale horumarinta ballaaran ee laga xaqiijiyay oo waliba wax badan hadda kadibna la sii xoojin doono waxaan leenahay xisbiga RPP iyo hogaaminta aragtida dheer ee madaxweynaha ayaa wax weyn ku soo biiriyay ka muuqdana dalka iyo caalamka oo dhan uu riyaaqay nabadgelyada Djibouti iyo ka qaybgalka nabadgelyada geeska Afrika oo dhan Djibouti qayb weyn bay ka tahay taasi waxa sahlay hogaaminta aragtida dheer ee madaxweynaha iyo RPP marka iskaashiga Djibouti iyo dalalka jaarka gaar ahaan Ethiopia iyo Djibouti iyo dalalka kaleba iskaashiga ballaaran ee ka hirgalay muddooyinkii 10 sano iyo in ka badan xawli buu u socdaa mashaariic fara badan baa la hirgeliyay مشاريع واوين أو حتى إن لقوا فكرة حتى مرمر علوسي نقولنا بلايين دولار يكون بحيان سيدا ترينكا سيدا ودوينكا سيدا كوميونيكيشن هذا سيدا دكذاها دي جالينتا مشاريعها صدقن وح سبوا حدا أهر جليي حزبك RPP يهجاميها أركض دير مدحوين إسماعيل عمر جله مشاريع ده صدقن لبدا الشعب dalka Ethiopia Djibouti isku xirkeeda iyo ka faa'iideysigooda wax badan uu taray haddaan deegaanka Soomaalida nahayna annagu wax badan tiri doonaa bay ka dhiganta dhammaan mashaariicaha laga hirgeliyay marka waxaan idinka sida ummadda Soomaaliyeed ee Ethiopia kalgaceel iyo salaan qaali ah guushiina inay waarto midnimadiina hogaamiyaha inaad garab istaagtaan oo wax badan qabsataan bal idinka baahan yahay run ahaantii geeska Afrika guushan iyo nabadgelyada la hooyay mid iska timid ma aha waa mid dadaal badan loo soo galay weey regionkan aan joogno dhibaatooyinka ka jira waan wad garanaynaa deganaansho la'aanta marka guushaad haysataan inaad ilaashataan shacab ahaan hogaamin ahaan xisbi ahaana inaad wadadaas mar walba ku taagnaataan iyo idinku rajo qabnaa marka waxaad loo tihiin هيل بعد لوتين إلهينا هذي كل قرولو نبض هذا